الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إلهي فضلك تبارك وتعالى وحين كسر دواني وإن كسر آدن وأن قابل صنهاي tobankii bishii Ramadaan u dambeysay oo inaga xigto laba habeen kaliya. waa bisha dhuuxeedii waay, waa bisha khulaasadeedii waay, waa meeshii ugu muhiimsanayd bisha habeenadeeda iyo waqtiyadeeda kala duwan. waa meeshii nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi uu dadaalka siyaadada ku bixin jiray, laana waxa way tobankan dambe bisha inteeda kale way ka fadli badan yihiin. wanaaga iyo khayrka la sameeyana la mid ma aha waqtiyada kale, xataa bisha inteeda kale la mid ma aha. waa waqtigii marka dadka ahlul khayrka ay tartami lahaayeen, waa waqtigii ganacsatada aakhiro ay sahay qaadan lahaayeen oo ay faa'iido raadin lahaayeen, waa waqtigii aan juhdiga iyo dadaalka gelin lahayn. waxaa ku filan tobanka dambe fadli, waxaa ugu filan in ay ku jirto habeenka laylatul qadriga. habeenkaasoo ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka uu ku sheegay fadaa'il fara badan. qur-aanka kariimka buu ilaahay soo dejiyey oo u dooray inuu soo dejiyo. habeenkaasi ilaahay wuxuu ku tilmaamay camalka la sameeyo inuu ka fadli badan yahay 1000 bilood oo ayadu ayna ku jirin 83 sano iyo ziyaado waay. habeenkaasi ilaahay wuxuu ku tilmaamay habeen barakadeed iyo khayrkeedu badan yahay, layla mubaaraka. wuxuu ku tilmaamay arrin kasta in la kala saaro oo ay culimadu ku fasireen sanadkaas soo socda waxyaalaha dhacaya diiwaanka weyn ee looxul maxfuudka inta laga soo qaadaa la soo dejiyaa oo la soo fasliyaa. malaa'igtaasi habeenada kale ka badan u soo degayso malakul jibriil la jiro. waa habeen nabada buu ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaa waagu ka baryayo. habeenkaasi nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuu baadi goobay, bisho dhan buu ka baadi goobay. tobanka horuu nabigu i'tikaafay isagoo raadinaya habeenkaas, tobanka dhexuu haddana i'tikaafay isagoo raadinaya. markaas waxa lagu yiri tobanka dambe ay ku jirtaa. tobanka dambu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka ka raadiyay halka ku dadaala, gaar ahaan habeenada tirada isdhaafka ka raadiyo ku dadaala buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. gaar ahaan habeenka 23aad buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam. laakiin culimadu sayleeyeen axaadiista ku soo aroortay si la isu waafajiyo waxay leeyihiin macnaha saxdii waxa weeye in sanadba ilaahay meel gelinayo, meel ay ku jirto ma taqaanid. marka saas daraadeed baa nabigeena laga qariyay sallallahu alayhi wasallam si ay ummaddu khayrka u badsato, habeen kastana u filato inay laylatul qadri tahay oo markaas ay taacada u badsadaan. nabiga waa loo sheegay kadibna waa laga qariyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. habeenkaasi tobankan dambe ku jiraa. tobanka dambe waa gabagabadii iyo khatimkii iyo sagootiskii bisha way. waa sagootiskii nabigeennuna wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam acmaashu waa khatimka waay. maxaad ku khatimtay bishii haddaad soo dadaashay? maxaad ku gabagabaysay oo kuugu dambeeyey? cimrigaaga haddaad dadaashay maxaa kuugu dambeeyey? cimrigu muxuu u dambeeyey? maxaa camal kuugu dambeeyey muxuu ahaa? al-umuur bil khawaatiib. khaatumadu waa muhim. sidaas daraadeed inuu dadaalkeenu bato, juhdigeenu bato, inagoo nabigeena maxamed ku dayanayna sallallahu alayhi wa alihi wasallam. kaana yajtahidu fi al-ashr al-awaakhir ma la yajtahidu fi ghayriha. tobankan dambe wuxuu bixin jiray dadaal uusan bixinin habeena kale iyo waqtiyo kale toona. wala sifa faahiyay nabigu sallallahu alayhi wasallam acmaashu samayn jiray, wixii uu soo waday acmaal khayrana wuu si laban laabi jiray, wuu siyaadin jiray. laakiin si gooniya waxa farta loogu fiiqay xadiidka saxiixaynka ku yimid xadiidii Aisha waxay leedahay nabigu sallallahu alayhi wasallam tobanka dambe Ramadaan haday soo galaan nabigu sallallahu alayhi wasallam ahya laylahu habeenkiisa waa nooleyn jiray, wa ayqadha ahlahu ehelkiisana waa toosin jiray, wa shadda mi'zarahu guntigana waa adkaysan jiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. habeenkiisu nooleyn jiray بمعنى إله عبادتي سو هبينك انتي سبدان كقادن جري النبي صلى الله عليه وسلم. وحي علماء ليهن
cibaado oo dhan waa nolol waqtigay nolol u tahay oo zamankiibay nolol u tahay oo makaankiibay nolol u tahay oo quluubtay nolol u tahay cibaadada iyo dikrigu waa nolol la'aantiina waa geeri saas daradeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam xadiidka fi sahih muslim wuxuu yiri guri ilaahay lagu xusay iyo guri ilaahay aan lagu xusini waxay ka dhigan yihiin meyd iyo noole oo kale bakhti iyo mid nool oo kale quraankana waa ka ilaahay noogu sheegay dadka qalbigooda iimaanka iyo dhikriga ilaahay uu ku jiro ilaahay wuxuu ku tilmaamay dad nool gaalada iyo munaafiqiinta qalbigooda uu dhikriga iimaanku ka maqan yahayna bakhti buu ilaahay ku tilmaamay wama yastawi al-ahyaa'u wala al-amwaat sidaas daradeed nolosha qalbiga iyo nolosheeda rasmiga wasideedaba waxa weeye waa ilaahay daacadiisa iyo cibaadada iyo iimaanka iyo khayrka nolol ah habeenkiisu noolan jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay leeyihiin culimadu lagama qaadanayo inuu habeenka oo dhan soo jeedi jiray mana diidayso waqti kooban inuu ruuxu nasto oo yara seexdo maxay ila Aisha nabiga waxay ka warinaysaa kama fi sunan an-nisa'i waxay leedahay nabigu sallallahu alayhi wasallam waligay ma arkin asagoo quraanka hal habeen ku wada akhriyay mana arkin bay tiri isagoo habeen dhan soo jeeday ilaa waagu ka bariyay ma arkin bay tiri asagoo bil kaamila soomay oo ramadaan ahayn waligay ma arkin bay tiri oo yaa ka khabiirsan oo uga xogaalsan nabi maxamed cibaadadiisa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi faqihada ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anhuma iyo ummahatul mu'minin لأن النبي عبادات كيس النوافشيسة أيجا عيد أوجا حوجو قال سنة ما تشرين سأستردد وحي لا ده هاي هبين لا النبي قوم السوتش هذي تشرين يعني وحي ربو يرن سنشري كذبنا عبادة الله بو استاج تشري صلوات ربي والسلام عليه أحيا الليلة هبين كمرك وإن للنوليو وأيقظ أهله أهل كيسنا وتوسين تشري النبي صلى الله عليه وسلم ضبيعت سيد هذا وحاؤها هيد sanadka intiisa kalaba markuu nabigu salaada habeenkii tukanayo inuu reerihiisa kiciyo xaasaska kiciyo dadka guriga jooga kiciyo si ayaguna fursad iyo jaaniska uga faa'iideystaan sahih al-bukhari waxa ku sugan nabigu sallallahu alayhi wasallam habeenada kamid hurdada ka soo booday isagoo argagaxsan nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu yiri subhanallah aawa maxaafitan la soo dajiyay maxaa khazaa'in la soo dajiyay iyo khasnado war dumarka qololka jiifaya kiciya من يوقظ صواحب الحجرات تمرك قللك تشيفيا كعيا بدنا هويني أدونك مركي تشوكتو مرقبتا آخرنا قاوم بو نبي قول صلوات ربي والسلام عليه بل وحيد الله أن حريستو نين هبينكي كعي أو تكذي أو حاسكي سكعيي أو هديكي ويدي بيكو صيري الله أن حريستو هويني تكتي هبينكي كعضي تكتي نينك هذا كعسي هدوك عواينا بيكو صير وقويس سوكال ميسانا يا خير كي طاعد علشاني دمرك كلية ماها عرورتا وحي حميلي كرونا إن لقا قيب قليو وعبادة الله كعيو هديجي النبي قالنوها صلوات ربي والسلام عليه أيقظ أهله أرنت صدح هذه شد من إزاره قنتقو أتكيسان شري علماء وحي كوفا سيران dumarka iyo gogashoodu ka fogaan jiray galmadu ka fogaan jiray tobanka bari laana i'tikaaf buu gali jiray i'tikaaf iyo dumarna isma laha wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid hadu ruux marba i'tikaafsan yahay dumar la isma yaqaano sidaas daraadeed dumarka waa ka fogaan jiray sunnadiisay kamid ahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tobanka dambe haday soo gasho inuu nolosha dhan intuu ka dhaxbaxo oo masaajidka dhaxdiisa teen dhayar ka dhisto halka inuu galo oo inuu hawl muhiim ah u soo baxan mooyee uu san bixin xiriirka rabbigi علاقاتكن ارتباطاتكن حريركن مشاغلشن الدنيا وسو خيرو لأن مددا كوبان يودون يا النبي صلوات ربي وسلام عليه قلبيسو إنو حريرك ربي أتكيو ساسترادت باعتكافي جري صلوات ربي وسلام عليه إلى أنتو كجيريون ينو اعتكافي مدينة مركو تجي صونك اللجوء تبيي لقب بالله إلى جيريدي سي نبي اعتكاف كما تجين صلوات ربي وسلام عليه
kadibna dumarkiisii iyo xaasaskiisii iyo saxaabadiisii baa ictikaafkii qaatay oo ictikaafi jiray nebi maxamed gadaashii salawaatu rabbi wasalaamu caleyh lama hayo isagoo ictikaafka ka tegey ramadaanka ilaa hal sano oo nebigu sal alla alay wasalam intuu masaajidka dhexdiisa teendho ka dhistay teendhadii markuu hagaajistay ayay caaisha idan weydiisatay rasuulka ilaahi ii idan anigana agtaada inaan mid ka dhisto waa uu idmay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xafsa waxay ku tiri caaisha anigana nebiga ii weydii way u weydiisay waa u idmay iyaduna agtiisa ka dhisatay zaynab baa ka war heshay markaas iyaduna agtooda ka dhisatay nebigu meeshii wuxuu ka soo baxay isagoo meeshan teendhooyin dhooban yihiin mid xag ka dhisan waa fahmay nebigu sal alla alay wasalam albira aradna buu nebigu sal alla alay wasalam ma wanaag bay u jeedaan waa dumar isu masayrsan ma wanaag bay u jeedaan bay idinla tahay fujiya buu nebigu sal alla alay wasalam teendhadayda fujiya waa ka tegey ictikaafkii ayaguna guryahoodii bay ku kala noqdeen haddiiba nebiga meeshii ka kaxay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sanadkaasi waa ka tegey ictikaafka 10 dambe laakiin muxuu sameeyey saa kagama tegin 10 beriye bisha shawaal u horeysuu ku bedeshay oo nebigu ictikaafay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed xataa hadday duruuf mucayana dhaafiso nebigu sal alla alay wasalam waa soo bedelkeedu la imaan jiray ahmiyadda ay leedahay ictikaafka iyo sunnadaasi qiimaha ay ku fadhido ayaad garanaysaa inuusan nebigu si fudud uga tegi jirin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bal waxaa sugan sanadka uu geeriyoon doono nebigu sal alla alayh wasalam 20 beri buu ictikaafay bedelkii 10 beri waxay tilmaamaysaa ruuxa markii da'diisu ay korodho oo xagga qabriga u sii dhowaado inuu camalka siyaadiyo oo wax ku daro oo intii hore uusan ku ekaynin waa ka rabbigii tabaaraka wa tacaala ku yidhi idaa jaa nasrullahi waalfatxu ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هدي حالدها علامتها سيمادان إلهي قول كسيو مكاءات فرطو دادك دينتا أي كوحكوحية أي قودو أصوغلان قبائل هل مرصوضة إسلاميسا مركاسي قيري دادي واسود وادي ديار قرو نبي محمدو محان كو ديار قرو با تصبيح دا إيا حمدك إيا استغفارتا بدي بالله ruux markay geeridii soo dhawaato aakhiru umri uu joogo waa inuu xagga aakhiro u bato xagga qaabilo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam marka sanadku geeriyoon doono 20 bari buu ictikaafay bedelkii 10 ictikaafkaasi marka hal ogaado oo hal lagu dadaalo muhiimaha masaajidun jaamica hadaad hesho waad ku ictikaafi kartaa salaadaha jumcada iyo jamaacaadka lagu tukado inkastoo saddexda masjid ay sii fadli badan yihiin masjidul xaraamka iyo masjidka nabigeena madiina iyo masjidul aqsa ay sii fadli badan yihiin haddana masjid kastoo jaamica waa lagu ictikaafi karaa cala saxiix alladii calayhi jamaahiiru ahli ilcilm waxaa kaleetoo lalayaal muhima 10 dambe acmaasha qaaliga ah mar walbana qaaliga ah laakiin 10 dambe qaaliga sii ah waa ducada iyo addoonku inuu isbihimbihiyo inuu rabbigii isu oohiyo inuu gacmaha u taagto inuu baryada badiyo sujuuda ku baryo taagnida ku baryo fadhiga ku baryo jiifka ku baryo maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala cibaadaadka loogu dhawaado kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah baryada bal nabigeenu sallallahu alayhi wasallam cibaado oo dhan wuxuu ku koobay baryadu ku koobay الدعاء هو العبادة بريضة إيدا أمبا عبادة أبو نبي صلى الله عليه وسلم إيدا أمبا عبادة كلما أدونك بريدي سبضته إلهي تبارك وتعالى دتك كلوا أقول نويه الباب ذا إلهي قراع دنهاga u gudbiso duruufahaaga u sheego baahidaada sheego si tadarruc iyo isbihimbiin ku jirto u sheego Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anhuma nabiga salawaatu rabbi wa salaam alayhi wa kuntu rasuulka ilaahi oo hadan waafaqo laylatul qadriga maxaan dhaha nabiga sallallahu alayhi wasallam salaatu kama dheh sadaqana uma tilmaamin quraan akhrisna uma tilmaamin kulligeed waa acmaal waaweyn لكن النبي وحكور صلى الله عليه وسلم هداد ليلة القدر وافقده محان لها وحاتر هذا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الله وحاته متك عفين تبضا وأدو مدي سسامحة يا ربي وإسكك عفي إله إسامح ودم بقى قداف وعيبت إذا أستر وعذابك إلالي سأبري بنبي كور صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني
marka baryadu habeenadani waa cibaadaadka aadka weyn ba kamid tahay waxaan meesha ku jira sidoo kale cibaadaadkii kale sadaqaadkii waa qaali quraanka akhriskiisii waa qaali cibaadaadkii kale la waday waa qaali laakiin waxa weeye kuwan si gooni ah ay nusuustu u tilmaantay inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam mudnaan khaas siin jiray tobanka dambe aynu dadaalo oo aynu sahay qaadano oo aynu khatimkii khaatumada hagaajino biidin ilaahi tabaaraka wa tacaala la'alla wa asa waxa dhici karaysa inay tahay tii kuugu dambeysay hoosta ka xariiq waxa dhici karaysa inay noqoto 10 bisha Ramadaan ilaahayna gaarsiiyo 10kii bisha Ramadaan ee kuugu dambeysay inay noqoto dhici karaysa hamogaanin hana nacasoobin yeena ka hoos bixin dadaal iyo جهدي بحي كان صحي قاد بإذن الله تبارك وتعالى صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك